السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور هذا جوار أوفشال هديك عصبتها بليز سبسكرايب لايك أن كومنت داوري لجوك عمري عافمات بركيسن الله يدي حفظ دمانتين مال بعدون كجوكتان أصحابتي دقالي iyo dhammaan asxaabtii waalidiintii iyo family-intii wixran dhammaan waxa idin leeyahay jazakumullah khair inta hore u joogto like comment share nala wadaaga maanta iyo qiso kale cusub qisada kale maanta cusub waxay tahay qiso jecel qisooyinkeena sida hore u sheegnaba isbuucii 2 mar 3 mar 4 mar waxa awoodin insha Allah inaan soo geliyo haduu Ilaahay idmo Ilaahayna raali ka noqdo maalmahaneeti waa idin karaagay insha Allah halaga raali noqdo asxaabta oo iska mashquulay maanta iyo qiso jecel ayaan waxay ka shidan tahay wiilasha qisadooda ka shidan tahay waxay la soo wadaaga wiil walaal ah oo ku nool qurbaha qiso jecel oo aad iyo aad u xanuun badan marka walaalaheeyo walaalkeena awalan haloo duceeyo mar walba inta dhibeysan oo dhibka haysto oo ummadda muslim ah ummadda Soomaaliyeed ah ina horta ku isu duceeyna oo noo duceeyna walaaleen dhib qaba kii xanuunsan iyo kii jecelahay iyo kii meel laga haysto inuu Ilaahay oo wada saqiro oo qof walba soo jecel yahay Allah siiyo maanta iyo qisadana maxay tahay walaalkay wuxuu ku bilaabay sida tan abaay waa ku salaamay walaasheedii macaan waxaan isla soconay gabar waxay isla soconay muddo oo 3 sano iyo bar ku dhawaad ayaa gabadha isla soconay qalbigeyga ayaan ku aaminay xoolahayga dhamaan ayaan ku aaminay naftayda ku aaminay gabadhan way qiyaamaysay gabar qiyaam lagu ogeyn gabar way naxariis badneeday gabar waa hooyo wax laga ma sheegi karo aniga naftigeeba gabdhaha kamid ah marka walaalkeena qisadiisa ana ka hor dhicin wuxuu dhahay abaayo gabadha nafteyda maalkeyga wax walba ku hilma waan ku aaminay sida ugu aaminay nacma mehersatay su'aal yani caadi isku la hadalnay markuu isbedelay mayo dhahay waa isjeclaan sanad walba waxay leedahay marka wax sanadka soo socda ismehersanayna wax barashadaan dhameynaya wax barashadii markay dhameysto hadana waxay tiri shaqaaraasanaya hadana markay shaqadii hesho hadana waxay ugu tiri suuq walaalo macaan oo hadhow hadaa isguursano Ilaahay oodo nagu arsaaqi karaa nacam ilmihi hadii la galileen qof dumar ah iska taqaana mashquulka nacam oo ninkeeda mashquul ilmaha la galaya marka walaalo suuq sanadba sanad say ugu dhiibeysa gabadhii waxa dhacday ilaan wiil kale ayay gabadhi isjeclaayeen oo waxa siiyo gabadhii wiilka kale ayay siinayso dhahay marka waxaan ku ogaa dad badan ay sheegeen oo dhahay oo niskeenii qaanay asxaabteena gabadhaneed walaalo kuma rabto walaalo gabadhan ka daneyso marka ma aamineyno dhahay hatta walaashii ay sheegto ma aamineynin marka gabadha aad u jeclaayo oo ahay waa qofka ku jecel yahayna wax walba xumaan ma arka maahno marka walaalkay waxa ku leeyahay sorry Ilaahay ha ku cabido marka wuxuu dhahay gabadhii markii sanad 3 sano iyo bar dhamaad nacmaana wax walba aan soo diyaariyay wax walba igu xujeysay sharuud walba igu xujeysay ha badnaadaan ha yaraadaan ha adkaadaan wax walba waan soo diyaariyo dhahay dahab noocaas rabaa waan ordo waa soo shaqeeyay sanadkay ii dhiibayso ana waa orday guri noocaas rabaa waan orday ehelkeena inta isla sii waa orday marka gurigii diyaariyay waxay rabta diyaariyay nacam wixii familkeeda la sii lahaa diyaariyay wax walba u baahan tahay nacam adduunyo korkeeda waan diyaariyay markii aan diyaariyeen walaashay oo warkan kale igu soo dhacay gabadhan isku lugoynayso waqtiga ka cunos walaalo kuma rabto hatta sawiraan nacam wiilka kale isla galeen oo meel isla casheenaan kulli waa la soo sawiro dhahay ma aaminsani ayada daawadiyo nacam qof wiil walaalkay waay asxaabtay waay nacam waxaas bay leedahay dhahay wiilkii anigana gabadhan baa aaminsanahay waxa soo shaqeey waa u sheegaa waasiya wax walba baa sabooradeeda dhan way taqaana haday noqoto bangi haday noqoto akoonadeeda kulli gacanta ka saaray seerta oo isticmaasha subhanallah bil qiyaana badna waxa dhacday alcamum gabadhii wiilkii markay 3 sano bar dhamaad wuxuu dhahay walaalay hadda shaqadii waa heshay akoonkaaga wixii ku gali karo Ilaahay ku calfo ku galay hadda waxaan diyaar u ahay inaan isguursano hadii wax runka yahay hadii wax ka beenka yihiin warka la sheegay hadda ogaana
عتر ولا لو كوشيغا وقت جايز كدومينين aniga kuma jeceli aniga wiilkaas aan jeclahay adka subxaan allah wiilkaas aan jeclahay mana ku rabi mana ku jeceli mana ku jecleen mana ku jeclaa dooni warcad maano daaska maqashii horta gabar Soomaaliyeed oo horta waa ka xumaa in hadalkaas maanta aan walaal sheekadan ina aan soo qaato maana jecleen raaksan dadka dad xun ayaa ku jiro ilaahna ha soo hanuuniyo awalan maanta wiila wax dhibaateey baa igu badneeda gabdho wax bay dhibaateeyaan waa maqal jir waana arkay taasna lidarajo gabara waxaan geesanays wallahi isma dhihin waa dana gabar Soomaaliyeed waa gabdhaha koow fast ugu qalbi jilcan ugu nadiifsan ugu niida fiican ayay yihiin marka walaalkay waxa ku leeyahay Allah ku dhibdhaamo ilaahayna qalbiga ku cabid wax ka qeyr badan Allah ku siinay qeyr ku yeena laga yaabaa ina calaf xaq alana calaf iskaaga ahayn markuu wuxuu dhahay ninkii kale ayada ay jeclatay xooleegi wax dhan siineysana ayadina wuu sii qiyaama subxaan allah inta wiliba ninka kale isguursanaabo gabadha dhibaatada ku dhacaysa waa wiilka kalena wuu sii qiyaameynaa ayada lagu dhahnaa kale uu sii jecel yahay asagana Afrika joogto marka walaashii hadaa heshid ninku jecel ha iska dayicin waayo maal adduunka horta awalan waa la helaa caafimaad شيء قال وهدي إلهي عافمات كسيه أو ننجع أو كجعل إلهي كسيه عم بجبر كجعل إلهي كسيه هرت قف وهدو كجعل هذا نصيب يا ليه هاي قف كجعل هاي سكضيعين وايو حال الله حلو كجعل هذا ونصيب كلا واحد جعله ودبعته جعل أن نقول سوى جعل هذا ونلول هل جعل هذا ونلول كلا واحد جعله ودبعته جعل كان عمك قف كلا جعلاته ضرف واحد هرت دبعته لهذا مرك لبده قفات جعلين نعم وحول بس فهمايان نعم وحول بو واسلم اللي كرتي واسكو سمري كرتين عشان ضرف واحد دو عم قبل عم بويلكو يا دبعته لهذا هاي حدي قف ما أنت كده ونحو اسكريجا وقف خطر نعم وسجل أجع الشباب الدوي ذا بو وحاب اسكريجا وقف كله أنت ما فهمته قف كان حدي مركز نوع عسبة أكو أركتيت أضو جعل وضاعت وقلبي جاga بليز gaabso xad ha ku lahaado bini aadan la isku madhiibo si walba u jeclaa laasan qalbigaaga xaduud halaado qofkan adi ma dhalin adi nacamnidaada inaa siisidoo lidaraja ku qofishid horta qalad qofka jeclaa haduu ku jecel yahay jeclaa ma ku jecla Allah macaa habis ku daalinbo xumaana laga sheeg wax walba laga sheeg dabagal samee wixii sax waay Allah macaaki maxaa isku dhiibaysaa maxaa isku dhibaateynaysaa labada qofood halis jeclaa nolol waa nolosha adduun u baahan tahay oo u baahanahay marka horta taas halaga waanto badsaatan aan waxa ka xanaaqaa qofka daraf waxad kan kala wax bahdilay leesh sagaal bila ku dhalad sagaal bila ku dhashtay bahdilma meesha ma taalo marka waxa idin leeyahay inta dadka oo dhibaateynaan baqiyaaba qofka daarabin ku dham ku rabo taasna ilaahay inta iga soo qaada jecelkan iskama imaada ilaaha qalbigaas ku abuure iska samir ku dheh hadii la jeclaadana waa okay ma la jeclaana qofka waxa dheesa kuma jeceli daneeso asna qofka ina qalbiga soo jiidatido نعم تحت أمرك قعنت هذا أكش هدنا أكو دارس الدبات اللي هذا وحن حنوم قلبك قاعد بلا دعوة مجلد أوكي دويل كان قبل وايد دعوة هذا بري هذا نيك صدقلك وجيدا إيد ومجد دبات له قسمين ومجد لأنه وانا واحد جعل ويل كان واحد جعل إيد كاس نيك صدق إيد قيامين ووحول بسينس ومجد دبكيس كنة وإيدنا ومجد دبع أساس وكل هذا marka waxa idin leeyahay halaga waan toobo inta laga waan toobi karo halagu jeclaado nasiib leedahay qof la jeclaado baa tahay qofkan koolkoolso inta qof aad jeceshahay fiiriya hora loo dhaq qof aad jeceshahay iyo qof ku jecel keel guurso ama keel qaata kan ku jecel qaadin oo ku naxariisana ilaa asaga ku jecel asaga keesa karo taas marka kalagaaga sheedaan amal wax aad jeclaatid laga rooro dibkeeda leedahay qumayda soo socod ku dhacdina jecel aad tacbaan la tahay marka dhibaato waxa siitay labada daraf waxa fiican ina wixii saani la isku ahaado saani qofka ma ku aan qalbigaaga ha ku ahaado maxkuum ha ahaado qalbigaaga horta koow asaasan waxa iska dhaadhacsiisaa maxkuum inuu ahaado warninka ha ku qabo وحرير هايدين كده قلبك محكوم هذا واجعشه وكجعليه وكقدريه قدري وكادنيس كدنيس عدم مدلين حبرت دشاب انو كسوتو عاد اروس كولا غلي ام بعد حرير كل سمي حرير نعم وقربا رب مقربا مع السلام حاورير كيناي قفك عاد مدلين شلو سو وين عرفت انا وين صرنا قلبك وحو وجعلك راسن بني ادم ها اسكو ديبين لانه waa is dhiibtay adiga dhibaato ku taala gabar adiga u liita dadka waa ninkan bini aadan mid kale inta usiga jecel hado arkino oo waxas iska hilmaama laga yaabaa
laakiin maanta qofka hadduu jecel wax qabto gabdhaha u badan yihiin soo dhul dhicaysid isdhiibaysid jirkaa laga qaadi karo wax walba laga caqli badi karo gabarey waa adiga waxa dadka u nugul waa adiga marka walaalkaa ha qiyaamin walaalkaa ma jeclid gabar inay qiyaamto walaashaa ma jeclid la qiyaamo adise qof u qiyaamaysa marka khiyaanadan xaraam waaye mar walbana waa ka hadlaa khiyaano xaraam waa khiyaano weelkeeda ma daboolno khiyaano weelkeeda nacam ma fiicno qiyaamada ma fiicno qofka ma ku rabi dheh ilaah iga keeni kara maxabadana waxay ka imaataa min cinda allahi ka imaataa halis jeclaada halagu jeclaada nasiiba kalaga wax jeclaa wareer waa jecel isla qabana beelo ayaa heli karabo alxamdulilah waa markaas inaa laba rakac dukatid waa soo maahan marka qofkan jeclaaw ha ku jeclaado wax hadduu lagula ogyahay dhib ma leh laakiin kalagaa wax jeclaa wareer waa qofkaba inuu kaasii jeedo kaasii fogaana haddaa aragtid tasfiiqe qeyrkiisa malyaano i jeclo iga daba ordaayo nacam keligiis le malee abuurin keligiis le tale adduunyada maleegu soo koobin malaayiin oo ragaa kaa daba ordayso malaayiin aa ka daba ordayso qof kaligeeda ha isku keeno qofkan wuu ku rabaa wuu ku jecel yahay qadarnaa qadari jeclaaw ilaahay hadduu kaa keeno marka nolosha taas ma aha nolosha inay hal qofood qof bursato ma ahan maalin walba walaa qisooyinkaaneet nacam waxaa dhahaa wax maalin walba walaa dhibaato waay gabadha wax qiyaamta wiila wax qiyaamo qofka calaf uu kala ilaahay calaf uu iska dari karaa calaf labada qofood uu kala geey karaa calaf isku keeni karo waa la ogsoon yahay laakiin inaa oo qiyaano meesha timaada qalad ah gabadha adoo isjecel iyadoo ku jecel oo isjeceshihiin qof kale ka guursan karaa si fudud nacam calafkaaga maahan qofkaasay calafkiisa ilaahan u qoray looxa maxfuudka u qorantahay laakiin qiyaamo xaraam waay qiyaamo xaraam ha qiyaamo qofka daada jecleen hataa u sheeg walaalo ma ku jeceli ilaah iga keena iga keenso walaalay ma ku jeceli ilaah iga keena iga keensaaba taalabo haddii qofkii oo markaas intii walaalay niideeda ma ku siinaan walaalo niideeda nacam ma qaadino isdiina mac salaam ardullahi waasac waay qalbiga qof bini aadan ah ku furin ilaan kan ku qabo oo xalaashaada ilaahay ka dhiga naftigiisaba si hadduu ku jecel yahay jeclaa ma ku jecelo allah macaahu qalbiga xakameeso qalbiga hala xakameeyo qalbigan waa miraayada doomar jabane wallahi ma soo noqonaa qalbiga hala xakameeyo qalbigiina xaduud ha lahaado insha allah maanta waa careysana waayo qof xumaana khiyaanada adduunka khiyaana u necbahay wallahi marka qalbiga hala xakameeyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلاشين جوار أوفشال إن شاء الله لايك كومنت إيشار قصدنا بليس أم بليس وحي فكر ديني إيو ويلكا ولا لطلي لي هذا إن شاء الله وسوق قرب كومنتيغا